waxaad sheegtaa lafta bini'aadamka ku jirta ee aan baabi'in oo abuurka iyo ciiduba aan cunin. السلام عليكم صاحبada ku xiran saasuuban ku soo dhawaada barnaamijkeeni ahaa gara jawaabta qaybtiisa shanaad. saaxiibayaal janaalka haddii aadan horey ugu soo biirin nagu soo biir oo subscribe inoo dheh. su'aasheena koowaad maanta waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa dembiga aan la dhaafin. jawaabtu waa shirkiga. waxaad sheegtaa goortii la farad yeelay zakaatul fidriga. waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee hijriga. waxaad sheegtaa lafta bini'aadamka ku jirta ee aan baabi'in oo abuurka iyo ciiduba aan cunin. waa lafta la yiraahdo cajabu danab, waana lafta maalinta qiyaamo laga soo saari doono dadka. waxaad sheegtaa 4 xayawaan oo ay xaaraan tahay in la dilo. waxay kala yihiin quraanjada, shinnida, hudhudka iyo kan afraad oo ah raha. waxaad sheegtaa waxa loo yaqaano ereyga muttafaqun calayhi. waxaa loo yaqaanaa wixii ay isku waafaqeen Bukhari iyo Muslim. waxaad sheegtaa 2 nebi oo ilmo habaryar ahaa. waxa ay kala ahaayeen Nabi Ciise calayhi salaam iyo Nabi Yaxye calayhi salaam. waxaad sheegtaa Nabi Suleymaan calayhi salaam aabihiis. wuxuu ahaa Nabi Daawud calayhi salaam. waxaad sheegtaa 4 bil ee xurmada. waa Dulqicda, Dulxajji, Muharram iyo bisha afraad oo ah Rajab. waxaad sheegtaa nebi kale sidoo u ahaa. waxa uu ahaa Nabi Muuse calayhi salaam oo waxaa sodogiisa ahaa Nabi Shucayb calayhi salaam. haddaba su'aasheen ugu dambeysay barnaamijka waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa habeenay nebi dhalay, nebina la dhashay, nebina qabay, nebina ay dhashay. waxaa la oran jiray Liyaa. waxaa dhalay Nabi Yacquub calayhi salaam. waxay la dhalatay Nabi Yuusuf calayhi salaam. waxaa qabay Nabi Ayuub calayhi salaam. waxayna dhashay Nabi Dulkifl calayhi salaam. su'aalahiina maanta inta ayay ku dhan yihiin. waxaa noo ballan ah barnaamijka xiga. saaxiibayaal muuqaalka laag inoo saarsiina sheer garay kuna soo biir janalkeena saasuuban ee subscribe inoo dheh. mahadsanid.